fulinta hawlaha guud ee qaran leeyahay waa mid ka turjumaysa xajmiga iyo miisaanka weyn ee ay hawshaasi ku leedahay dhismaha qarankaasi. wasaaraddaas qaranka oo dhan baa la doonaya inay dhulkiisa waagto dhulkii qaranku maamulo oo la dawladda hoose ilaa halkaas leedahay saw maamul. xaruntii dawladeed ee ugu horreysay ee la diiwaan geliyay ayaa noqotay xarunta qasriga madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee magaalada Hargeysa, halka xafiiskii ugu horreeyay ee dawladeed ee la diiwaan geliyana uu noqday xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaanu sanadkan diiwaan gelin dhammaystiran ku sameynay dhismayaasha dawliga ah ee dalka iyo kuwa kale oo dadka ka dhaxeeya sida masaajidda iyo milcaamadaha. maanta waxaa qaranka Soomaaliland u diiwaan gashan xarun kasta oo dawladeed meesha ay ku taalo gobol, degmo iyo tuulo. isfahan iyo wada shaqayn aan horey u jirin oo aanu yeelannay badi dawladaha hoose ee dalka iyo maayiradooda. waxaanu sanadkan hoos u dhignay dhulboobkii lagu hayay dhulka danta guud ee magaalooyinka dalka in ka badan 60%. markii ay dhacday duufaantii Sagar ee ka dhacday gobolka Salel, Saaxil iyo qaybo kamid ah gobolka Awdal, wasaaradda hawlaha gobolka iyo guryeyntu iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda waxaan u dirnay tiimkaasi runtii waxay soo qiimeeyeen dhammaan khasaarihii meesha ka dhacay. aanu gacanta ku hayno dhowridda iyo ilaalinta tayada dhismayaasha in ka badan 40 mashruuc oo xukuumaddu meelo kala duwan oo dalka ah ka dhisiso. marka ay ku qancaana ayaa maxay dhismaha la soo gabagabeeyaa. marka aad iyo aad baa runtii wasaaradda hawlaha guud aan ugu mahadcelinayaa. waxaa la bilaabay bishii koobaad 2020 heshiiskana waxaa wada galay wasaaradda iyo shirkadda wada galay. magaalo ganacsiyeedka Wajaale ka hirgelinay mashruuca hagaajinta qaab dhismeedka magaalada. waxaan ahaa injineer ka mid ah injineerada wasaaradda hawlaha guud. waxaan halkan u imi inaan Wajaale u sameeyno wadooyin oo aanu ka saarno dhibaatooyinka haystay. mashruuca qorsheynta iyo hagaajinta qaab dhismeedka magaalada Laascaanood ee waqtigan iyo kaayaha waxaan ugu qaadatay muddo 20 cisho iyo ka badan inaan ku diyaarino nashqada marka magaaladan tan Laascaanood loogu talagalay oo runtii ah master plan-kii. waxaanu ku hambalyeynaa wasaaradda hawlaha guud shaqada ay qabteen ee wanaagsan. wasaaradda hawlaha guud iyo dhulku muddada kooban ee sanadka hay'adda hadda teeramka dambe waxay ku talaabsatay waxyaabo badan oo wax ku ool ah. wasaaradda waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa oo bogaadinaya wasaaradda hawlaha guud qorshe sanadeedka ay gaadhis intii madaxweynaha waddanka Muse Biixi Cabdi joogay.